waxaa dhacda marka qaar in hooyooyin uur leh isbitaalka yimaadaan kadibna la arko in ilmahooda meedeen oo mar hore ay ku meedeen. waxaa la dhacdo oo dumar badan ku dhacday ayagoo iska tirsanayeen uur leeyihiin ilmahooda u korayaan 5 bil 6 bil 7 bil ay tirsanaysaa laakiin ilmihii ma noolo. maalin maalmaha kamid ah waxay leedahay noocsiga ilmihii si fiican ma u dareemaysid, ma aragtid ilmaha baryahan noocsigoodii maxaa qaldan. isbitaal ay imaanaysa kadib waxaa la ogaanayaa waa hore ilmahan ay dhinteen. maxaa keeni karo? horta hooyo walba uur leh waxaa la rabaa inay sameyso booqashooyin u gooni ah hooyada uurka leh. waxaa loo yaqaanaa antenatal care ama ANC loo soo gaabiyo. waa waxyaabaha ugu weyn ay qabtaan MCH-yada, sidoo kale dhakhaatiirta cudurrada haweenka ay qabtaan. waxay kamid tahay in hooyada xilli hore la ogaado xaaladeeda caafimaad, la socdo, lagu dadaalo in uurkaan iyo iyadaba caafimaadkooda wanaagsanaadaan ilaa ay ka gaarto inay dhasho cunuga caafimaad qabo, iyadoo caafimaad qabto umusheedana noqdo umul caafimaad leh. haddii marka hooyada boqoshooyinkan ay aadi weyso, talooyin badan ee dhakhtarka uga baahneyd ayaa meeshaas ku dhuminaysaa. waxay ku dhuminaysaa meeshaas la socodkii lala socon lahaa iyadii cunuga. waxaa meesha ka baxayso in cunuga kjigiisii, miisaankiisi intuu ahaa, caafimaadkiisii, wadne garaaciisii, koriimadiisii, biyaha ku hareeraysan, xogtaas dhan meesha lagu arki lahaa. kadib waxaa dhacaysa maalin maalmaha kamid ah in isbitaal timaado laakiin la arkay in cunugii waa hore ku meeday meesha, ama uu ku dhacay growth retardation oo cunugii koriimadoodii waa hore meesha 4 bilood oo koriimadiis ku ekaatay ama 5 bilood miisaankiis aad u yaraaday, ama biyihii aad u yar yihiin ama biyo aad ugu badan. sidoo kale wuxuu ka hordhin kartaa xanuunada sokorta uureyda ku dhacdo, dhiigkarka uureyda ku dhaco, iyo dhiig la'aanta iyo dhiigga ka yimaado hooyada marka uurka leedahay. waxyaabahaas oo dhan si looga hortago waxaa muhiim ah inay aado booqashooyinka dhakhtarka uu u qorsheeyay.